ليش شرعي وإنه كسر ريان من كستبا ما ها شرعي إن رجع قارك أي كسر ريان واسمودان أو ما كي حول عليهم أو ما كي بوس هي يعني شرعي كسر برايان بينه شرعي نكر براي متشرو وحنا بنودي سنة هي إنها فلسان شرعي وصيد حق أبو فلسان هذه قلبة دبها حق أي كله حتى وأول إدارته قلبة كلا دبها هذا وحول ومركا إسكو قسم هيان كديرنا waxay daraan ay tahay xumaan iyo musuqmaasuqi foosha xumaan ma doonayno inaad dadka noo xirtaan bilaash ma rabnaana waxaanu dagaalkanagu uu ka koobmay cadaalad xumo bayna la dirirno sidaas baanan u yeelaynin marka cadaaladda marka lagu ciyaaro haddana inaanu magaca anagu sidno xumaantana dad kale ay sameeyaan taas ma yeelimayno sharci naga xirayaana ma jiro meel lagu gabanayaana ma jirto ninkii ay ka dhab tahay ilaahay horti inuu dadkiisa xaq u xukumana waa midka aanu garab taaganahay waxa wanaaga uu mudan yahay aan marinayno midka musuqmaasuqi maskaxdiisa ka fujin la'ana ka aanu yeelimayno in annaga ceebto ay noo timaado isaguna uu falo oo ceebta sameeyo taas ka yeeli mayno yuusan ku riyoon taas waxay inoo kala dhigaysaa haddii kalsooni shaqadaada inaad ku qabsato ma rabno inaad naga baqdo ma rabno sekretariga cadaaladda inaad ka baqdo ma rabno inaad qolo kale ka baqdo damiirkaaga inaad ka baqdo waddankaaga inaad ka baqdo ilaaha inaad ka baqdo oo xaqaad marka ku fuliso taas baan kaa doonayna waxaan isleeyahay ninka xaakimka naftiisa waxay ku tahay cuqdad aan ka baxayn maxaa waay markuu nin dambiile yahay waxaan ugu ogahay inuusan habeenkii seexanin walwal miiran kaasaa kuu dhiman keeraa kuu dhiman goormaad samayn doontaa berri u dhigo saaddan baad qaban doontaa isuu leeyahay inuu ka nasto oo madaxiis bannaan uu marka wuxuu qabsanayo kale u qabsado ayaa uga roonay waxaa hor fadhiya madaxweyne maxamed cali sharmaan haddii ay u yaraato 2 sannadood ayuu hayaa xukuumadda militariga fulay baa la yiri nin dhintiya nin dheer mara gashada xakaamada militariga anaa madax u ahaa weydiiyo waligay nin sii daaynaanay markii aan shiriyo xakaamada militariga wixii aan kala dardaarmi jiray waxay ahayd ha ka baqin cadaaladda haddii ninka laga gardaraya askariga siida haddii lagu gar leeyahay shicbiga iyo waddanka ka khayroon xir saas baan oran jiray waligay nin sii daamadeen u yaree ma dhihin ha laga daaya ma dhihin ninkii aad ku maqasho ii soo sheeg anaa xirayo isaga baan oran jiray macnaheedu waxaa weeye waa inaan aaminsanahay cadaaladda leesh sharcigu waa inuu ka sarreeyaa nin kastaba ma aha sharciga in ragga qaarkii ay ka sarreeyaan oo ismoodaan ama markay xoogaa xoolaa leeyihiin ama markay boos hayaan inay sharciga ka sarbarayaan been weeye sharciga nin karbaray ma jiro taas waxaa weeye qaraabka waddanka marka uu socdo markii sharcigu uu hoos maro oo nin us yidhaahdo haddii sharciga nin baa sameeyey anna maan sameeyo sharciga nin baa sameeyey laakiin waddo xalaala oo quman oo dhabayaal badan leh oo laga fiirsaday baa loo sameeyey waxaa loo sameeyey maslaxadda caamka ah ninka xulna in lagu qabto oo khaaska ah keligiisa caamiyadana nabadgelyadooda iyo maslaxadooda in lagu daafaco marka nin keliya marka see ku samayn karaa kii laga gaashaabanayo sharciga loo sameeyey isagii weeye see ku bedeli karaa taa nacamu sharcigu waa inuu dul jooga isagu taas yacni waxaan ka wataa aniga oo hawl wanaagsan idinku ducaynhaya haddana sharcigii waa inuu sarmaraa ninka laakiin naqahaya naftiisu waa inuusan u qaadan mar hadduu isagu naqahayo sharcigii inuu yahay isagu sharcigii ma aha waa ka turjubaanaya keliya haddii awalto aynu saaraynay maamul xumo ballan baan idinka qaadhayaa maamul xumo wax nalaga xada maahe waxaanu annagu guddoominay inayan jiraynin wixii naga xadana ragga ku shaqalow hadday ku qabtaan inaan laga daba tegayn oo noo siidaa waa qaraabada mida inayan yeelaynin kuwaasna adinkaan idiin keeni doonnaa waxaan rajaynaynaa xukunkooda inaad marisaanin waa kuwii naga xadaa annaguna saasaan u guddoominaynin waxaan ku soo koobahayaa dadka inkasta oo aad sharcigii ku jirtaan oo sharciga dadkii madaxda u aad tihiin annagan ka xumahay inayan suuro geli karin halka in lagu soo urursho
qaaliyaalkii waddanka balse aan hubo adinkuba aad u warrami doontaan annagu waxaanu suga galsinaynaa haddii alla idmo aniga iyo revolutionary councilba ama armed forces in annaguna aanaan ku joorfalin annaana u oggolaan qolo ku joorfalaysa sharciga adinkana waxaan idinka rajaynaynaa ka turjubaanidda sharciga aanu kuna tashanayno in aad muxuu ahaa wax ka qabanaysa anigu waxba ka sheegi maayo hadallo badanoo lagu hadlo laakiin caqli iyo faham adinkaan idin daynaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu